haddaan salaada jamaacada ee masaajidka ka soo dib dhaco oo hortay laga baxo dadkii salaada ku xirtay ee weli dhammayn iyagoo istaagay anigu iyaga ma ku sii xidhan karaa masaladaasi oo masalada la yidhaahdo si kale marka loo dhigo qof markii hore ma'muum ahaa imaam ma isu bedeli karaa haddaan intaa ka ballaadhinna waxoogayna qof imaam ahaana ma'muum ba isu bedeli karaa salaada dhexdeeda su-aasha jawaabta labada dhinacba waa haa waa la ogolyahay adigoo imaam salaada dadka u ahaa inaad imaamnimadii salaada dhexdeeda wareejiso adigana ma'muum isu bedasho waa la ogolyahay waxaa sugan nabigeena sala allahu aleyh alih wasalam inuu maalin soo daahay salaaddii isagaana tukan jiray abubakar baa tukiyey dadkoo hormaray nabig case markuu soo galay intuu safafkii soo dhaafay buu halkii safka hore ah buu boos ka soo galay abubakar hareeraha ma dayi jirin subxaan allah subxaan allah subxaan allah ba aada loo yiri shanqarkii baa batay kadib abubakar gadaal buu soo fiiriyey isagoo salaada ku jira oon qalaabtiisa leexin ayuu gadaal jalleecay nabigu ark sal slam nabigu wuu u shaaray oo salaad buu ku jiray wuxuu yidhi halkaaga joog intuu subxaan allah yidhi buu gadaal u soo gurtay nabiguna horey buu u dhaqaaqay markii salaada la tukaday nabig alay slam wuxuu yhi abubakar buu ku yidhi joog waan kaan ku leeyahay salaada dadka wadee maxaad u diiday wuxuu yidhi ma habboon ilama fiicnaanin in abi quxaafa isagaa isku jeeda abihi abu quxaafa la dhihi jiray inuu rasuulka ilaahay hor taagnaado oo tukiyoba ila qumanaan weyey halkaa waxaa ka garatay nabigu alay salatu wasalaam marka hore markuu xiranayay ma'muum buu ahaa abubakarna imaam buu ahaa markay isbedeleen imaamkiina ma'muum buu noqday ma'muumkiina imaam buu noqday marka daba qof imaam ahaa inuu ma'muum isu bedeli karo qof ma'muum ahay oo gadaal taagnaana imaam isu bedeli karo baad halkaa ka garatay waana masalada la yidhaahdae soo gasha haddii imaamkii weysadu ka jabto qof dadkii kamiduu jiidaya oo gelinayaa meeshiisii ama duruufi ku timaada uusan salaada wadi karin waana sidii cumar sameeyey radi allahu canhu salaad subax markii toorida lagu dhuftay cabdiraxmaan ibni cawf oo gadaashiisa taagnaa buu soo qabtay wuxuu dadka salaada tuki isna waa la qaaday waana sababtay ku cileeyaan culimmadu xadiidka nabig sal slam liyaliyanii minkum ululaxlaami wannuha uma aladiina yaluunahu dad salaada axkaamteedii iyo gudashadeedii yaqaana haygu xigaan si haddii imaamkii wax qabsadaan ay meesha uga sii wadi karaan oy axkaamtii halka wixii ka dambeeyay garanayaan ma'muumkii oo imaam isu bedelay iyo imaamkii oo ma'muum isu bedelay labadaba xadiidkan ay ka muuqata saas darteed haddii qofku markii hore imaam uu ahaa ma'muum uu ahaa oo salaadii laga baxay hadda waa keligii salaadoon laga bixin buuba imaam isu bedeli karee salaadii laga baxay imaamkiina dhammaaday isaga binisba lahu imaam iyo ma'muumnimadii way dhammaatay isaga marka la eego waa qof keligii tukanaya oo keligii bilaabay ama keligii tukanaya oo la xukumay xukunkiisu qof keligii tukanayana salaada waa lagu xidhan karaa oo nabig alai sl slam salaatuleyl iskaga tukanayo masaajidka meel uu ka samaystay iyadoo ramadaan tahay saxaabadu isagoo logay waa kay ku xidheen oy habeen labaad ku xidheen oo habeenkii saddexaad ama afaraad oo guriga iska galay nin markuu yimid salaada ka soo daahay oo salaadii laga baxay oo keligii tukanaya mar nabigu arkayna waryaa ku sadaqaysta buu yidhi ninkaas maxnaa salaada jamaaca uga dhiga abubakar baa yidhi aniga radia allahu canhu wa ardaah oo ku xidhay ninkii si ay salaadu jamaaca ugu noqoto marka haddaas masaajka timaado qof tukanaya waad ku xidhan kartaa yaan lagu xidhan karin qof hadda imaam ku xiran isagu oy salaadii socoto de imaamku ku xidhan yahaad ku xihan kartaaye isaga kuma xidhan kartid isaga laftiisa ma'muuma isaga ku xidhan yahay ku xiro mid baa la ogol yahay haddaadan imaamkii arkin isaga inaad fiirsato wuxuu samaynayo siday dhacday xilligii nabiga caleyh salatu wasalaam markuu xanuunsanaa
maalmihii noloshiisa ugu dambeeyey fadhi buu ku tukiyey dadka. Abubakar baa ag taagnaa. dadku Abubakar bay fiirsanayeen, Abubakarna nabigu fiirsanayay, waayo dadka safafka dambaa ma arkaynin nabiga sal allahu alayh wasalam. mar haddeen iyagu arkayni way ogaayeen nabigaa tukinaya, laakiin inuu rukuucay inuu sujuuday maadaama ayna arki karin, Abubakar oo ag taagnaabay arkayeen oo markuu rukuucay la rukuucayeen. waa ku calaamadaysi maahane safafka dambe qofkii jooga inuu safafka hore ka horeeya fiirsado markii la rukuuco, gaar ahaan makarafoon hadduunan jirin ama codku soo gaarin. wabilahi towfiiq.